gabadhan leedahay assalaamu calaykum waxaan ahay gabadh timaha ayaan marsaday kalar hadda waxaan rabaa inaan dib ugu soo celiyo midabkii hore ee madoobayso ma marsan karaa timaha in la mariyo midab aan ahayn madowga asalahan waa iska banaayay wax maanic oo diidayahay ma jiro allahumma inuu gaadho darajo ama heer dumarka gaalada la isku shabahayo ama dumarka caahiraadka ama faajiraadka dumarka yani xunxun oo diin la'aanta kuwaasoo kale la isku shabahayo ama gaalo la isku shabahayo inay arrintu nooca u ekaato heerka gaadha mooyaan asal ahaan way iska bannaan tahay timaha in midabkooda laga bedelo oo midab kale loo bedelo midabkaasi hadduusan madow ahayn ayib haddiise laakiin ay ujeeddadu tahay ama ay ku jirtaba gaalo laysu ekaysiinayo la raacayo laysku shabahayo marka ma bannaana man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum bay soo gelaysaa taa waa midabada kale ama midabka madow hore baan uga soo hadallay timaha in la madoobeeyo haddii loola jeedo qish iyo tadliis in dad lagu khayaamo dad lagu siro dad loo maalan loo beenguuro marka inay xaaraan tahay waa la isla ogolyahay haddii aynan madoobaysa timaha la madoobaynaya aynan arrintaasi ku jirinna waa masale khilaafiya ilaa saxaabada ilaa maanta la isku khilaafsan yahay culimada qaar xaaraamay qaar karaahaysta qaar banneeyay inta waa isugu jiraan sidaas daraaddeed gabadha timaha kalaraysay ama midabka u beddeshay inay dib madowgeed timihii madowgoodii ugu soo celiso wax maanica sharcan uma arko wax dhibayna leedahay wallahu aclam